tijaabinta malabka saxda ah. Waxaynu dhammaanteen ognahay in malabku leeyahay faa'iidooyin badan sababtoo ah waxaa ku jira faytamiinada kala duwan iyo maadooyin badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad faa'iidooyinkiisa helaysaa oo kaliya markuu malabku yahay kii saxda ahaa. In badan oo ah malabka aan ku aragno suuqa ayaan ahayn kii saxda ahaa. Marka sidee ku xaqiijin karnaa in malabku yahay kii saxda ahaa? Haddana taas baan ka hadlaynaa. 1. Isticmaalka iodine. Isku dar malab, biyo iyo dhibco iodine ah. Hadduu midabku isku bedelo blue, malabka waxaa lagu daray bur iyo starch. Malab sax ahna maahan. 2. Dab ku dhejinta. Isticmaal kibriit ololaya oo ku dheji malabka. Hadduu ololo, malabku waa sax. Hadduu sadamo, malabku kii saxda ahaa maaha oo biyo ayaa ku jira debinahayo holaca. 3. Ku qasidda biyo. Isku dar qaaddo malab ah iyo dhibco biyo ah. Hadday isku qasmaan, malab sax ah maahan. Malabka saxda ah iyo biyuhu iskuma darmaan. 4. Ku daridda finaga. Isku qas biyo iyo malab, kadibna ku dar 5 dhibcood oo finaga ah. Hadday xoori soo boodo, malabku ma saxna. 5. Adayga malabka. Wuu degayaa wuxuuna yeelanayaa muuqaalka sida sonkor la shiilay. Hadduu saa noqdo oo uu dego, waa malabkii saxda ahaa. Hadduusan deginse oo xasilin, maahan kii saxda ahaa. 6. Dareerka. Waxaad qaadada ku qaadaysaa xoogaa malab ah adoo foorarinaysid. Hadduu si xawli ah ku dareero, malabku ma saxna. Malabka saxda ahi dareerkiisu waa gaaban yahay.